mawduucani waa muhiim. haweenaydu hadday samayso waxaa la dhihi karaa waxay soo jiidanaysaa farxad iyo baraare iyo inay ku faraxsanaato la noolaanshaha ninkeeda iyo nolosha ay nooshahay. waa arrin laga yaabo maskaxdaadu inay ka weyn tahay oo aad la yaabtid, ayna tahay markii ugu horraysay ee aad maqlaysid. ninka iyo haweenayda isqaba ee xalaasha isku ah markay howlihii sariirta gutaan, arrimo badan ayaa ka yimaada hawsha noocaasa oo dumarka weliba kusii badan. dumarka qaarkood gogosha ay ninkeeda la jiiftay hawsha markay samaynayeen, markay hawshu dhammaato waxay iska jecel yihiin inay meeshaba hal mar banneeyaan oo ay gogol kala doontaan oo ay ka fogaadaan ninka, ama ninku inuu sida asagu sameeyo oo xaaskii ka fogaado markii calaaqadu dhammaato. marka isla markiiba hawshu dhammaato laga yaabaa midba meel inuu u ordo oo u aado. laakiin haweenaydu waxyaalo badan inay aaminsantaha laga yaabaa inay la sii joogto galmaday hawshaa kadib oo ay kusii nagaato la jirkiisa in ninku xoogaa dhibsanayo ayay dumar badan iyo qaarkood aaminsan yihiin. laakiin gabar yar haddaad isla markiiba meesha ka tegtid, isla markiiba mar allaala markii xiriirka iyo calaaqadu dhammaato jirkaadaad ilaalsanaysaa. laakiin qaabkee? yacni adiga ninkaada galmadii hawshii markaad dhammaysataan isla markaad istaagaysid, istaaggaasi macno weyn buu ku dhisan yahay. tusaale kale waxaad u istaagtay suuliga inaad aado soo kaaridid, faa'iidooyin badan baa arrintaa ku dhisan. arrin aad ka samaynaysa noqon xasuusnow faa'iidooyinka arrintaa ku jira. adiga ninkaada xiriirka gogasho markaad dhammaysaan isla markaad istaagto kaadi u baxdid, faa'iidooyin badan bay arrintaa leedahay. aad bayna kugu fiican tahay isla markii inaad suuliga aadid ama xamaamka waxaa loo yaqaan si aad usoo kaadishid. bimacnaa isla markii galmadu markay dhammaato haddaad suuliga aadid soo kaadisid, caafimaadkaada iyo farxaddaada aad iyo aad bay ugu muhiimsan yihiin gabar yahay. waana arrinta adii soo gudbinaya haddada tan. kaadida la kaadiyo galmada kadib isla markiiba waxay kaa taageeraysaa arrintaasi weliba si weyn inaad ka takhallustid waxyaalo badan oo infekshiku keeno iyo bakteriyada iyo waxyaalaha loo yaqaan mikrobaadka. haweenayda xubinkeeda taranka iyo agagaarkiisuna waxay helayaan caafimaad iyo naacow aada u fiican. marka 5 daqiiqo ilaa 4 daqiiqaba ha ahaatee galmada kadib suuliga gal si aad usoo kaadisid, caafimaadkaada way u fiican tahay. haddaad arrintaa u fiirsan oo aada samayn oo arrintaas iskaga kaa daba timaado oo aada xasuusnayn, ogo waxaa iskaga kaa daba imaanaya arrimo isdul fuula oo meelaha kaadi mareenkaada ah ku imaada, kuwaasoo soo jiidaya dhibaatooyin badan oo caafimaad darro ah. marka faa'iidooyin bay kuu leeyihiin gabarya galmadu markay dhammaato inaad suuliga aadid oo soo kaadisid. dumarka qaarkood waxaa laga yaabaa inay u maleeyaan galmada kadib oo kaadi loo baxo, kaadi la aado, inay qarribayso ama meesha ka saarayso macaankii romansiga ee ayadu ay rabtay daqiiqada ka horna socday. laakiin arrintaasi xaqiiqo ma ahan. gabarya markay galmadu dhammaatay isla markii haddii aad u baxdid suuliga si aad usoo kaadisid 2 daqiiqo 3 daqiiqo kadib galmada ha ahaatee, ogow jirkaada caafimaadkiisa iyo farxadda naftaada ayaad soo jiidaysaa ood ka shaqaynaysaa. si fiicana inaad u istijootid, biyahana iskugu soo dhogdid ayaa kuu muhiima si aad uga takhallustid arrimo kala duwan oo caafimaad darro ah oo infekshinka uu keeno oo markaa ku hareeraysan galmada kadib xubinkaada taranka iyo meelaha loo yaqaan qaska ama gumaarka iyo wixii la midka oo ka mid a meelaha u dhow ee xasaasiga. arrintaani waa muhiim inaad fahamtid, waayo caafimaadkaada u fiican tahay, qoyskaada ayay u fiican tahay, ninkaada u fiican tahay. marka kale aad hawsha ku noqonaysaan ayay sii xoojinaysaa oo xiiso u leedahay. waxaana kusoo dartaa markaad soo istijootid soo kaadidid weeso, adoo weyse qaba kadib kusoo noqon ninkaada iyo gogashii. waana midda rasuulka ilaahay oo noo sheegay sala allahu calayhi wasalam, markii galmada labaad lagu noqonayo weyse u qaado, nashaadkii iyo awooddii iyo farxaddii aad sii siyaadaysa. maasha allah. waa muhiim inaad baratid waxyaalaha caafimaadka u leh diintaada iyo adduunyadaada, waayo in badan inaad afka laabtid baahina ay ku hayso, khajilaad beenbeenana muujisid adoo baahi ay ku hayso ama dhibaato kale la daalaa dhacaya, qani baa arrintaa ka tahay oo waa ka kaaftoontaa. waxaad la socotaa mar walba markay galmadu dhammaato inaad suuliga aadid oo soo kaadidid, waayo gabar yahay farxadna waad dareemaysaa, ninkaadana waad ku kalsoonaanaysaa, waana aaminaysaa. gogosha qoyskaadana qurux bay noqonaysaa iyo mid farxadi kasoo dhex baxdo. taasi hoosta ka xariiq.